ururka Australian Light Foundation urur u taagan taakulaynta bulshada iyo wadeegista dadka qaba baahiyaha gaarka ah waa urur ka jawaaba baaqa bulshada iyo sidoo kale horumarinta iyo taakulaynta bulshada haddaba iyagoo mudnaanta siinaya maalinta Ciidul Adha ay leedahay waxay deeq xoolo nool ay gaarsiiyeen cisbitaalada TB-da iyo cisbitaalka dhimirka iyo sidoo kale dadka danyarta ee ku nool gobolka Gabiley iyo sidoo kale dadka degan deegaanka Xaaji Magan waxaana deeqdani xoolaha u soo wakiisheen Caydarus Cadare oo ah wakiilka ay u soo wakiisheen xoolahani nool Caydarus Cadare oo ah shakhsi mar walba isagu ka shaqeeya arrimaha bulshada oo wakiila ay bulshadu aad u mahadisay maaha markii ugu horeysay ee ururka Australian Light Foundation uu deeq gaarsiiyo gobolka Gabiley waa urur markasta ka qayb qaata taakulaynta bulshada wakiilka deeqdani xoolaha ayaa gaarsiiyay goobaha cisbitaalka dhimirka iyo TB-da iyo sidoo kale agaasimayaasha labada cisbitaal ayaa ka mahad celiyay deeqdani sidoo kale dadka danyarta ah ee deeqdani xooluhu ay gaadhay waxay tilmaameen in ururka Australian Light Foundation uu yahay urur ay mahadiyeen bulshadu waxayna ku tilmaameen ururkani inuu yahay wehelka bulshada Bismillahir Rahmanir Rahim waxaan maanta ku suganahay xarunta dhimirka Gabiley oo aan la joogo gudoomiyaha guddiga xarunta dhimirka Sheekh Xuseen Xasan Galuube iyo Dr. Mukhtaar agaasimaha isbitaalka dhimirka Gabiley waxaan ku wareejinayaa laba neef oo loo ah oo ay noo soo wakiisheen ururka Australian Light Foundation oo ah urur khayriya oo ka shaqeeya ilaa carafada meelaha dhiban noo soo wakiisheen inuu gaarsiino xoolaha waxaa leeyahay Dr. Gudoon laba neef oo loo ah oo ay noo soo wakiisheen Australian Light Foundation xarunta dhimirka Gabiley waxay ka mid tahay meelaha ugu mudan in markasta laga warhayo waxaan walaalaha Australian Light Foundation halkan uga faa'iideysanaya inaan u diro baaq oo aan leeyahay xarunta dhimirka Gabiley waa meelaha ugu mudan gobolka in laga warhayo ururka Australian Light Foundation oo na soo gaarsiiyay laba neef oo xoolo waan idinka gudoonay waan idin duceynaynaa ilaahay halka Allah ka soo saarteen wax khayr badan ilaahay idinku bedelo run ahaantii dadka cisbitaalka dhimirka ku sugan waa dadka u baahan mar walba caawimaad joogto joognaa xarunta dhimirka Gabiley ayaa waxaan ugu soo booqday Yunus Maxamed Cabdillaahi oo kiila Australian Life Foundation isagoo noo keenay deeq ay soo direen maxaan ku raayay dhimirka deeqdaas oo laba neef oo loo ah oo xaruntii TB-da Gabiley anoo ka wakiila hay'adda Australian Light Foundation waxaan laba dibi ku wareejinayaa agaasimaha isbitaalka TB-da Gabiley Dr. Mustafa Xasan Maxamuud labada dibi oo soo wakiilatay Australian Light Foundation maaha markii ugu horeysay oo isbitaalka soo gaarsiino waa markii saddexaad waxaan ku wareejinayaa labadii dibi agaasimaha TB-da Gabiley Dr. Mustafa Xasan Cumar waxaan halkan maanta kala wareegayaa Mr. Caydarus Maxamed Cabdillaahi oo ka wakiila Australian Light Foundation ururkaas oo markaa waxa weeye 3 sano u dambeeyay xilligan Adxada ciida keeni jiray xoolahani laba dibi oo wax weyn ka tari doona waxa weeye nafaqadii bukaanka isbitaalka ku jira iyadoo dad badan ay ku jiraan hadda oo rag iyo dumar bay isugu jira taas waxay ka caawin doontaa inay waxa weeye xanuunkiisa fiican xataa ugu bogsadaan waxaan laba dibi oo soo wakiisheen hay'adda Australian Light Foundation ugu wareejinayaa oday Ismaaciil Ibrahim Qaalib waxaa leeyahay gudoon labada neef waa ka gudoon Rahmaan Rahiim anigoo ka wakiila hay'adda Australian Light Foundation waxaan laba dibi ku wareejinayaa odayga xaafadda wada jiray magaalada Gabiley si uu gaarsiiyo dadka danyarta halkaasi ku dhaqan waxaan leeyahay laba dibi iga gudoon Xaaji Calaw waa Khalid Maxamed Daahir TV-ga badda cas gobolka Gabiley